gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa waxa uu maanta ay bishu tahay 10 bisha 9 2021 waxa uu shaaciyay inuu u taagan yahay jagada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook ayaa waxa ay u dhignay sidan waxaan maanta Jimcaha si rasmi ah u cilaaminayaa inaan ahay musharax u taagan jagada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo aan ka dhex tartami doono shirweynaha xisbiga oo qabsoomi doona 30 ilaa 31 bisha Oktoobar 2021 balse inta lagu guda jiro shirweynahaasi ayaa la filayaa inay ka soo dhex bixi karaan musharaxiin ayaguna u tartamaya gudoomiyenimada xisbiga mucaaradka ee wadani balse ilaa iyo hadda ma jirto wax cid oo isu soo sharaxday jagadaasi oo u tartamaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro balse gudoomiyahan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa hore isugu sharaxay jagadan ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani balse waxa laga dhur sugi doonaa shirweynaha si lagu dooranayo gudoomiyaha uu yeelan doono xisbiga mucaaradka ee wadani ee dhacaya 30 iyo 31 bisha Oktoobar ee nagu soo aadan Umar Cali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber